wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona amiirka qatar oo markaan sasabasho ku bilaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa uu dan ah uu ka leeyahay amiirka madaxweynaha Kenya oo caleema saarka xasan sheekh maxamuud ka cadeeyay tallaabo uu qaadi doono maxay tahay tallaabada uu qaadi doono madaxweynaha wadanka Kenya wararka ugu dambeeya xaaladaha kala duwan ee haatan ka jira dalka iyo qodobadaha Abiy Ahmed iyo saameyntii ay lahayd ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa haddaba daawaday haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena leega sheerka commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya ee warka janaalkeena runta wararka amiirka wadanka qatar ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud durbaba ku bilaabay sasabasho amiirka qatar sheekh tamiim bin hamdi al thani ayaa waxa uu qadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya xasan sheekh maxamuud inta uu socday kulanka waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo horumarin lahaa iyadoona dib u eegis lagu sameyn lahaa xaaladihii ugu dambeeyay ee xiriirka labada dal amiirka qatar ayaa mar kale u hambaliyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii dhowaan loo doortay madaxweynaha Soomaaliya isagoona rajeynayay inuu guul iyo horumar iyo kobac xiriirka labada dal uu sameeyo sheekh tamiim bin hamdi al thani ayaa waxa uu sheegay in dowladiisa ay si dhow ula socon doonto madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladiisa isagoona intaasi kusii daray inay haatan dowladda qatar barnaamij horumarineed ay ka sameynayso Soomaaliya qatar ayaa saaxiib dhow leeyahay dowladii hore ee madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo waxaana laga dhaleeceynayaa dowladaasi inay sameysay gabadhfallo fara badan oo si weyn saameyn ugu lahayd xaaladihii kala duwanaa ee dalka ka dhacay dowladaha qatar iyo imaaraadka carabta ayaa loolan xoogan waxay ugu jiraan midba midka kale sidii Soomaaliya awoodeeda ay gacanta ugu dhigi lahaayeen iyadoo shantii sane ee aan soo dhaafnay dowladda dalka qatar ay ahayd dowladda hogaaminaysay xiriirka iyo sidoo kale awoodaha guud ee Soomaaliya sheekh tamiim bin hamd al thani ayaa waxa uu adeegsanayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyadoo malaayiin lacag ah ay ku bixisay qaabkii Soomaaliya dhibaato waliba ay uga dhici lahayd dowladda wadanka qatar waxaa dowladaha imaaraadka iyo qatar haatan loolankooda u muuqanaya in midka kale uu doonayo in saameyn weyn uu ku yeesho siyaasadda Soomaaliya isla markaana tallaabo kasta ay u noqoto mid awood buuxda ay ku helayso dowladahan ayaa malaayiin lacag ah la wareegaya isla markaana ay doonayaan in hogaanka ugu sarreeya ee dalka ay saaxiib dhow ay la noqdaan isla markaana siyaasadooda ee iyaga ay rabaan ay ka fuliyaan gudaha wadanka waxaa dadka taxliiliya siyaasadda Soomaaliya ay sheegayaan in dowladaha qatar iyo sidoo kale imaaraadka carabta lacaga fara badan oo balaayiin ah ay u ballan qaadeen madaxda ugu sareysa dowladda federaalk Soomaaliya dowladda dalka qatar ayaa waxay hore u sheegtay in mushaaraadka ciidanka xoogga dalka ay bixin doonto iyadoo laba jibaar ay dowladda imaaraadka carabtu ay ballan qaaday in mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha guud ee dowladda Soomaaliya ay bixin doonto taasina waxay u muuqanaysaa loolanka imaaraadka iyo qatar weli inuu taagan yahay iyadoo mid kastaba natiijadiisa ay tahay sidii awoodda rasmiga ah ee Soomaaliya gacanta ugu dhigi lahaa madaxda Soomaalida ayaa waxaa xiriiro kala duwan ay la sameeyaan madaxda wadamada caalamka iyadoona dowladaha kala duwan ee dunida ay indhaha ay ku hayaan Soomaaliya iyo xaaladaha kala duwan ee ka jira iyadoo dowlad waliba targetkeeda uu yahay sidii ay mar waliba u sii laba jibaari lahayd xiriirkeeda ku aadan dib u eegista iyo sida mar walba dhaqaale fara badan ay ugu bixi lahaayeen sidoo kale waxaa Soomaaliya kor ka eeganaya dowladda wadanka Turkiga oo iyadana dhaqaale fara badan ka faa'iido Soomaaliya waxaana la sheegayaa in dowladaha Turkiga imaaraadka iyo qatar ay Soomaaliya dhibaato badan ay ku yihiin si lamid ah waxaa meel sare taagan dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo la safan dowladda imaaraadka carabta dowladaha Carbeed ayaa dhammaantoodba waxa ay hankooda iyo hamigooda ugu weyn uu yahay in ceelal shidaal iyo kaalmo waaweyn ay ka furaan Soomaaliya taasi oo ay doonayaan inay faa'iido fara badan ay ka helaan imaaraadka iyo qatar oo ku baratama saaxadda siyaasadda mandiqada bariga dhexe ayaa weli waxay yihiin kuwa aad saameyn badan u doonaya inay ku yeeshaan siyaasadda Soomaaliya waxaana la wada sugayaa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud talaabooyinka ay qaadi doonto dhanka kale madaxweynaha Kenya ayaa calaamasaarka xasan sheekh ka shaaciyay talaabooyin
tallaabooyin uu qaadi doono. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo kamid ah madaxdii ka qayb gashay xafladda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbad uu ka jeediyay ku sheegay inay furayaan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale tilmaamay in horumarka Kenya uu ku xiran yahay horumarka Soomaaliya maadaama ay yihiin laba dal oo diris ah. Kenya ayaa kamid ah dalalka uu xiriirka Soomaaliya kala dhexeeyo oo si weyn u xumaaday intii uu talada dalka hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Dowladda Soomaaliya ee xilligaani uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa meesha ka saartay siyaasadiisa kala jeclaysiga ee lagu kala saleynayo xiriirka arrimaha dibadda. Soomaaliya iyo Kenya ayaa mar kale isla unkanaya xiriir diblomaasiyadeed oo wanaagsan iyadoona labada dal dhinaca muujinaya niyad sami iyo sidoo kale in ay diyaar u yihiin ka wada shaqaynta labada dal. Waxaana taasi u muuqanaysaa in madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta durbaba diyaar garow xoogan uu ku bixinayo sidii ay dowladiisu ay juhdi badan iyo taageero badan ay u sii lahayd dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana la sheegayaa in ay haatan durbaba ay bilaabatay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya saasaantooda. Dhinaca kalena daawadayaal Somaliland weli waxaa ka jira xaalado adag oo dhibaato badan bulshada qaybaheeda kala duwan ay kala kulmayaan ciidamo ka amar qaata madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo culays siyaasadeed oo aad u adag oo bulshada haatan uu ku hayo. Sida wararka aan ku helayno, wararkii ugu dambeeyay ayaana tilmaamaya in ciidamo ka amar qaata madaxweynahaasi ay xirxireen dhalinyaro fara badan oo ka qayb qaatay dibadbaxyo ka dhan ah madaxweynaha maamulkaasi. Waxaana wararku ay sheegayaan in xabsiga magaalada Hargeysa la dhigay dhalinyaro aad u fara badan kuwaasi oo dhammaantoodba la sheegay inay ahaayeen kuwa si weyn uga soo horjeeda hanaan siyaasadeedka madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi. Muuse Biixi Cabdi ayaana waxaa la tilmaamayaa in culaysyo waaweyn oo durbaba uu la kulmayo. Waxaana tani u muuqanaysaa in saameynada kala duwan ee haatan jira ay weli ay taagan yihiin iyadoo xisbiyada u cidiyo sidoo kale wadani ay eedeen ay u jeedinayaan madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi. Muuse Biixi ayaa waxaa la tilmaamayaa inuu durbaba uu la kulmayo culaysyo siyaasadeed oo aad u waaweyn. Culeysyadaasi siyaasadeed ayaana waxay noqonayaan kuwa saameyn badan ku yeelanaya hogaamiyaha maamulkaasi. Inkastoo baqdin xoogan ay jirto in dhibaatooyinka ay sii bataan, haddana hadda Somaliland waxa ay cagta ay saartay wadada burburka iyadoo dadka taxliiliya siyaasadda ay si weyn u sheegeen in madaxweynaha maamulka Somaliland oo la soo baxay habdhaqankii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, taasi oo noqonaysa saameyn kale oo bulshada ku yeelanaysa xaaladaha adag ee mararka qaarkood jira. Waxaan la ogeyn wax waliba sida ay noqon karaan iyo xaaladaha kala duwan ee dhibaatooyinka joogtada ah ee shacabku ay la kulmayaan. dhalinyaradan xabsiga la dhigay ayaa waxaa la tilmaamay inay taageero u ahayeen xisbiga wadani. Waxaana sidoo kale la tilmaamay xildhibaan Barqad Jaamac Batoon in uu dhaawacmay kadib markii risaas ay fureen ciidamo ka amar qaata madaxweynaha maamulkaasi. Magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ayaa u muuqanaya kuwo culaysyo xoogan ay ka jiraan. Xaalada adag ayaana ka jirto haatan Somaliland. Guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waanaga intaa daba daawaday. Haddii aad janaalkeena runta ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka wararkeena, like, share, commentiga noogu dadaala. Waadna mahadsantihiin. Nabadgelyo.